Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada saaxiibayaal. Sidii caadiga ahayd, waxaan wadan doonaa taxanaheennii iyo casharadii noo socday ee barashada suuqa sarifka lacagaha qalaad. Qaybtiisii shanaad ayaan caawa hadduu Ilaahay yiraahdo rabnaa in aan wax badan ka ogaano. Sidii hore waxaan soo baranay suuqa forex-ka waxa uu yahay iyo sida uu u shaqeeyo iyo dadka ka shaqeeyo. Iyo waxaan soo baranay in ay jirto 4 xilli oo kala duwan oo suuqan laga soo galo. Okay. Cashirkii ugu dambeeyayna waxaan ku soo qaadanay sida loo soo degsado akoon deema ah kaas oo ay ku jirto lacag bilaash ah oo loogu talagalay qofka inuu ku tababarto. Maantana hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah marka waxaan ka sheekeyn doonaa goorma ayaad trade gareyn kartaa. Ilaan qofkii wixii marka uu soo barto suuqii uu soo fahmo sida loo soo degsado MetaTrader 4 marka uu barto. Sidoo kale waxaan soo dhaafay shalay waxyaabaha aan soo baranay waxaa ka mid ahay noocyada pending order loo yaqaano ee suuqan looga trade gareeyo sida sell limit, buy limit, sell stop iyo sell buy stop waxa ay yihiin. Maadaama marka intaas aan soo ogaanay waxaan rabnaa marka inaan fahno suuqan aan rabo in aan ka ganacsado forex-ka waqti walba oo qofka uu soo galo ma aha macnaha in uu faa'iido uu ka samayn karo. waxaa jira waqtiyo gooni ah jiro waxaa yaqaanaan dadka kalluumaysatada badda waxaa jirta xilliyo aan la galin oo ay kacsan tahay marka qofkaan ka siinin oo aqoon u lahayn waxaa laga yaabaa inuu is dhaho badda mar walba kalluuna ku jira bal baxo kalluunka soo dabo midda kalena waxaa kaleeto jirta ayadana qofka markii uu yahay naqoodiyo doonta ka shaqeeya ama doonta wada badanaa wuxuu sameeyaa jihada ay dabeesha u socoto raaca qofka haddaad dabeesha ka soo hor imaatid cagsi aad ku noqotidna marka dhinac kale ku tuuraysaa taasna waxaan rabaa marka inaad u fahantiin suuqan lacag naga badan qof walba oo muxuu ahaa ii sheeg suuqan soo galana ka badanna way ku jirtaa oo intaasoo trillion loogu sameeyaa bardheygii sida maalmihii hore aan kasoo sheekeynay laakiin waxaa loo baahan yahay marka inaad ogaatid maalmahee suuqan laga shaqaysan karaa goorma ugu fiican waqtigee ugu fiican xilli walba ee suuqan uu furan yahay maxaa dhaca lacag walba ee suuqan taalo waxaa jirto waqti walba oo kala fadhi walba oo suuqan uu furan yahay waxaa jirta bips ama dhaqaaq ay samayso oo go'an average daily average bips waxa la dhahaa jiro oo lagu ogaado dhaqaaqa lacagtaas ay samaynayso okay intaan hore waa marka hore dhacayna hadduu Ilaahay yiraahdo waa bilaaban doonaa qaybta ugu horeysa marka aan rabnay inaan ogaano waxa ay tahay saacadaha suuqa forex-ka maalmihii hore waxaan ka soo sheekeynay 4 xilli iyo meelaha ay kala yihiin marka waxaan rabnaa tusaale ahaan qofka marka waxaa jiro wax la dhaho GMT oo waqtiyada caalamka wadan walba oo caalamka ah saacadihiisu way kala duwan yihiin sida tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kaleeto hadda Soomaaliya waxaan ka horeynaa adiga hal saac inay naga horeeyaan u malaynaa haddeertaan markii lagu daray saacad markii hore intaan saacad lagu darin waxay naga horeeyeen 2 saacadood marka Jarmalka qofka joogo ama Yurub joogo ama Mareykan joogo ama wadan walba caalamka ah saacadaha waa lagu kala duwan yahay marka qofka uu u fahmo waxaa jira wax la dhaho GMT oo qofka uu ka qiyaas qaadan karo wadanka uu rabo si uu u ogaado saacada markaas ay tahay okay anaga ka forex aan marka dadkeena ka shaqeysta suuqa forex-ka waxaan u baahannahay in aan ogaano waqti walba suuqa furan waqti xaadirkaas wadanka uu ku yaalo xilliga ay u tahay qiimo intee la eega suuqaasi inta marka uu furan yahay lacagta hebel ama lacag heblaay ay dhaqaaqdaa okay ka hor intaan fiirin xilliyada ugu wanaagsan ee ganacsiga waa inaan fiirino waxa ay tahay 24 saac ee maalinta sida ay dunida ganacsiga forex ku eg tahay inaan sawir ka qaadano marka suuqa forex-ka wuxuu kala jibin karaa 4 kala fadhi ama waxaa jirta sida caadiga ah 4 qaybood oo aan hore ugu soo sheekeynay qaybta koowaad oo ah Sydney qaybta labaad oo ah Tokyo iyo qaybta saddexaad oo ah London iyo qaybta afraad oo ah New York kala fadhiyadaasi mid walba oo daaran waxaa jira marka fursado looga faa'iideysan karo iyo muxuu ahaa ii sheeg qaab uu qofka uu ku samayn karo lacag haddii laakiin uu fahansan yahay suuqaas okay sawirkan hortiina ka muuqda marka waxyaabaha wuxuu ka sheekeynaa Sydney oo kaleeto xilliga la furo oo ah 7
AM Sydney AM iyo BM waxaan rajeynaa inaad kala fahansan tihiin sida caadiga ah saqda dhexe habeenkii 6 saac markay tahay ilaa subaxii maalintii 6 saac laga soo gaaro waxa waaye AM wixii ka dambeeya 6 saac doorkiina waxaa bilaabanayso BM marka qofka inuu saas u fahansan yahay waqtiga hortaada ka muuqdaana in wax walba kaga qiyaas qaadan kartaa okay good marka sidoo kale waxaa jiro waqtiyada xilliyada xagaaga iyo winterka iyo samarka way kala duwan yihiin oo tusaale ahaan sida hadda anaga waqti noogula daray oo kaleeto suuqana waxaa imaanayso isbedel xilliyada uu furan yahay ilaa haddii aad rabtid dukaan ama ganacsi aad leedahay ama meel aad ka shaqaysatid waxaa u baahan tahay in aad ogaatid xaaladda meeshaas waxa ay ku sugan tahay waddankaas aad degan tahay sharciyada ka soo baxayaan tusaale ahaan haddii maanta aad rabtid subaxii inaad baxdo shaqo aadid shaqadii intaad aadin ka hore waxaa sida caadiga ah ee qofka normalka uu sameeyo waxay tahay inuu marka hore akhbaarta waddankaas ka jirta uu ogaado magaalada uu degan yahay waxa ka dhacaya inuu ogaado haddii tusaale ahaan la dhaho ka waran saaki magaalada ku sugan tahay bandu waa la soo saaray adigana aad shaqada isku diyaarisid oo banaanka markaa u degtid oo baabuurkaada qaadatid ganax waddada kaaga hor imaada ama dhibaato ama arrin nooc kale aad kala kulantid taas marka waxay caddaynaya inaadan macluumaad kugu filan aada haysanin si marka taas looga baaqsado waxaa loo baahan yahay waxay tahay inuu qofka marka hore uu haysto horta macluumaad ku filan suuqan aad ka shaqaysanaysid in aad og tahay xilliyada la soo galo iyo xilliyada laga baxo sida hore aan u sheegnay 4 kal fadhi oo muhiim ah jiro afartoodana waa kuwaana marka labada isbedelna wuxuu dhacaa bilaha March iyo Mars iyo muxuu ahaa sheek iyo April sidoo kaleeto xilligaas Yurub markaan joogno kale lagu daro saacada waqtiga uu isbedelaa in asaas u ogaatid fiican suuqii aad u gali jirtay 2 saac ama 2 saac subax aad u soo kici jirtay haddii saacad lagu daro in aad ogtahay suuqaasi in saacad ziyaada ay ku darsanto 2 saac meesha gali jirtay 3 saac inaad gashid noqonayso dhanka kaleetana xilliyada qaboobaha iyo samarkana ay isbedelaan okay intaas marka ogaana marka waxa ugu muhiimsan ee la rabo qofka inuu ogaado marka intay ka bilaabanayaan taastii waqtiga uu soo sheekeeyay waa celcelis ahaan dhaqaaqa tuubada ama waxa loo yaqaano bibiska lamaanayaasha waaweyn ee lacagaha inta lagu jiro kulan kasta oo ganacsi inta ay dhaqaaqdo waxaan sameeyay marka sawir tusaale ahaan aan u soo qaatay badanaana meelaha laga barto forexiska ama dadka inta hadda aan arkay Soomaalida qof wili soo bandhiga arrintan ama ka sheekeynaa horta ma arkin lagana yaabo in ay macnaha qorshooda ay ku jirtaa dhici karto marka laakiin tusaale ahaan marka anaga hadda waxaan fursad u helnay in aan ogaano xilliga suuqa uu furan yahay iyo waxaan ogaanay saddexda xilli ee ugu muhiimsan oo kala ah suuqa Tokyo iyo suuqa London iyo suuqa New York taas oo aragna inaan maanta hadduu Ilaahay yiraahdo aan ku falanqeyno meeshaan okay sawirka hortiina ka muuqda marka wuxuu ku siinaa macluumaad kuugu filan oo kuu kala sheegaya lacag walbo inta ay dhaqaaqdo xilli walba ee suuqan uu furan yahay ama session wax loo yaqaan ama kala fadhiga suuqan ha noqdo London ha noqdo Tokyo ha noqdo sidoo kaleeto New York tusaalahan hortiina ka muuqda marka sidii caadiga ahayd ee aan hore u soo baranay qaybtan ugu horeyso ay beerka ay ku qoran tahay haddii kelimada beer aad aragtid waa lacagihii iswato laba beer oo lacagood oo lamaane ah sida tusaale horteen waxa ka muuqdo euro iyo USD waxaa u baahnaa marka inaan ogaano euro iyo USD kala fadhiga Tokyo inta lagu jiro ee uu furan yahay suuqa Tokyo waxay dhaqaaqdaa daily average-keeda qiyaastii ilaa 76 bib wax ah haddii marka aniga suuqan maanta aan ka raadiyo wax 200-300 bibs ah macnaheedu waxay tahay adoo hurdo gurigaaga jiifa in magaalo bandow la soo saaray subaxii aad u labisatay oo aad rabtid in aad ka soo shaqaysatid okay marka Tokyo xilligeeda euro iyo USD ay dhaqaaqdo 76 bib sidoo kaleeto kala fadhiga London ama suuqa London markuu furan yahay sidoo kale euro iyo USD waxay dhaqaaqdaa qiyaastii ilaa 114 bib oo la rabo in qofku uu ku xisaabtamo ileen faa'iidada ku soo galaysa marka aad ogtahay ama waxa suuqan ka imaan karo sida caadiga qofka markuu ganacsado uu yahay uu wax uu ka ganacsado ama shaar ama dharka ama cuntooyinka haddii ka waran maanta maqaaxi kuu furan tahay maqaaxidaada ay samayso sambuus macaamilkaagana ay yihiin 10 qof haddii aad samaysid 100 xabo sambuus ah taas macnaheedu waxay tahay in adiga aad khasaare gacantaada ku samaysatay
inkastoo ay ku xiran tahay dalabaadka markaasi ku imaanaya laakiin mar walbana waxa laga qiyaas qaataa waxay tahay dalabaadka imaan kara iyo inta ugu badan ee dadka wax kaa gato iyo sida maalintaasi inta aa gadishay u xisaabsan lahayd sidoo kale marka suuqan forexiska waa sidii oo kale waa inaad ogtahay marka lacagta euro iyo USD waxay dhaqaaqdaa London session marka lagu jiro 114 bip okay sidoo kale waxay dhaqaaqdaa kalfadhiga New York markii uu furan yahay suuqa New York euro iyo USD waxay dhaqaaqdaa 92 bip celcelis maalintiiba okay waxa ogaatay marka euro iyo USD xilliga ugu fiican ee laga shaqeysan karo ee suuq fiican ee leedahay inay tahay kalfadhiga London taasoo macnaheedu marka ah in qofka raba in uu bibis fiican ka qabsado in uu isku aadin doono xilliga London oo uu muxuu ahaa ishay ka qabsan doono faa'iido fiican okay kaliya intaas kuma eko sidoo kale waxaa noo taxan qaybta hoose lacag aad u fara badan oo ay ka mid tahay lacagta GBP USD oo ah Great Britain pound ama lacagta Ingiriiska iyo dollarka Mareykanka sidoo kaleeto waxa ay dhaqaaqdaa ayadana marka la joogo kalfadhiga Tokyo 92 bips okay taas macnaheedu waxay tahay euro iyo USD way ka macnaha bips badan tahay marka loo fiiriyo kalfadhiga Tokyo labadooda marka isbarbardhig la sameeyo marka aan imaano marka suuqa London sidoo kale asagana way ka awood badan tahay oo meesha London ay dhaqaaqday lacagta euro iyo USD 114 bip kalfadhiga London GBP iyo USD waxay dhaqaaqday sidoo kale 127 bip okay sidoo kale marka suuqa New York oo furan yahayna waxa ay dhaqaaqday 99 bips macnaheedu marka qofka raba in uu lacagahaasi ka shaqeysto waxa uu kala dooran karaa lacagta euro iyo USD ama GBP iyo USD labadaasi lacagood teer macnaha mudan in aan aniga ka ganacsado ama aan ku trade gareeyo qofka macnaha dhaqaalaha ama faa'iido raadina uu fahmi karaa labada dhinac lacagtii badan ama sidoo kale marna waxaan ka hadlaynaa qaybta bibiska isay u kala badan yihiin marna waxaa jirto qofka wax asaga u qaas ah ama wax uu dooran karo tusaale ahaan aniga hadda markaan suuqa ka shaqeysanayo badanaa ma galo GBP USD ilaa marmar dhif maahane sababtoo ah lacagta GBP ee Great Britain pound waa lacagta ugu saameynta badan suuqan forexiska waa lacagta markii laga hadlayo suuqan volatility ama xawaare aad ku dhaqaaqdo hadday noqoto dhanka faa'iidadana aad u dhaqaaqda hadday dhanka khasaarada noqotona sidoo kale aad u dhaqaaqdo marka inta uu kugu badan lahay stresska ama buuqa uu kugu badan lahay waxaa fiican mar walba in aad jawi degan oo aad la jaanqaadi kartid aad ku socotid si marka taas aan u sameyno darteeda waxaan ka go'aansaday in meesha aan geli lahaa GBP iyo USD in aan ku trade gareeyo euro iyo USD sidoo kale marka tan dhaqaaqa bibiska waa laakiin marka la dhaho Europe iyo GBP oo ah Great Britain pound ama UK marka la isbarbar dhigo waxa imaanaysa dhaqaale ahaan yaa fiican horta labada wadan ilaa sida caadiga aan soo baranay waxaa jirta suuqan qaab fundamental loo analyze gareeyaa jirto lacagaha aad ka shaqaysanaysa xataa laftirkooda waxay hoos tegi karaan xaaladda wadankaasi dhaqaalihiisa hantida uu haysto keedka u yaala shirkadaha wax soo saaray wadankaasi uu leeyahayna qayb weyn ka qaadataa marka saas loo fiiriyo dhinacaas waxa badanaa fiican marka in aad ku trade gareysid euro iyo USD oo loo yaqaan eurozone sababtoo ah eurozone way ka weyn tahay Ingiriiska dhaqaale ahaan way ka dhaqaale badan tahay wayna ka wax soo saar badan tahay okay tusaalaha marka saddexda lacag ee ugu horeysa soo qaadanaynaa inta kale ee dhimanay hoos yaalan waxaan rajeynayaa idinka inaad fahmi doontiin sida saddexda hordhaca u sameeyay oo kaleeto ay isku mid yihiin oo mid kasta marba inaad goonigeeda u istaagno okay intaas markaan taaganahay marka waxaan rabnaa inaan ogaano USD iyo JPY oo ah lacagta Japan iyo lacagta dollarka Mareykanka ah maxay ayagana ay sameeyaan dhaqaaq ah Japan suuqan sidiisa Tokyo-da lagu sheegayo waxa way xarunta caasimada dalka Japan muxuu ahaa isheeg laga leeyahay lacagta yen ee Japanka okay lacagta dollarka Mareykanka iyo Japanka markii aan rabo in aan ku trade gareeyo daily average kooda ama celcelis ahaan maalintiiba waxay dhaqaaqdaa 50 iyo 1 bips ogow hadda marka waxa maskaxdaada aad gelisaa lacagtan anaga hadda horteena ka muuqata waxa laga leeyahay wadanka uu suuqiisa isla waqtigaas uu furan yahay laakiin saas ay tahay awood ahaanteeda inta bips ay dhaqaaqaysana waa in kooban waxa laga yaabaa xilliyada kaleeto ama lacagaha kaleeto inay ka awood badan yihiin
okay marka uu nimaadno suuqa London marka imaano oo ah suuqa Europe sidoo kale waxay dhaqaaqdaa 66 bib oo ayadana ka badan tii hore ee Tokyo sidoo kale marka imaano suuqa New York waxay dhaqaaqdaa 59 bib waxaan rajeynaa qof walba inuu fahmi karo mar walba oo aan suuqa London ka sheekeynayno wuu ka bib badan yahay wuuna ka dhaqaaq badan yahay suuqyada kaleeto taasna ayadana dib ka ogaan doonaa sababta keentay okay sawirkan dhanka bidix ka muuqda marka uu nimaano marka shaxdan ay ku qoran tahay Tokyo London iyo New York waxa hoos noo yaala marka shaxan ama tusaale ku siinaya lacag walbo iyo kalarka ay ku wadato meeshan oo dhinaca kor ah Tokyo kala hadda waa blue London waa guduud iyo sidoo kaleeto New York oo ah kalar jaalo ama huruud ah tusaalaha marka fiirina marka London xilliga London marka la joogo ama xilliga Tokyo marka la joogo ama xilliga New York oo ujeedin waxa ugu dhaqaaqa badan ee ugu dheereeya waa suuqa London mar walbo inta aad fiirisid ee dhinacaaga aad sii fiirisid suuqa ugu dheereeya ee ugu volatility-ga badan waa suuqa London waxa kaloo dhici karto hal mar oo dhinacan marka imaano qaybtan hoose sawirka haddii falaartada aan saara oo idin muuqdo ay ka awood badan tahay Tokyo suuqa London laakiin markaas oo kaleeto macnaha labada lacag ee la soo barbar dhigay waa euro iyo GBP oo labadoodaba ah lacag laga leeyahay Europe okay hordhacaas hore marka inaan isla fahmay rajeynaa haduu Ilaahay yiraahdo kow marka waa kala qaadaynaa waxa uu imaanaynaa Tokyo session oo laga leeyahay Japanka si aan u fahno marka waxaan rabnaa inaan ogaano hal shay oo mudan in la xusuusto ayaa ah in Japan ay tahay xarunta saddexaad ee ugu weyn ganacsiga adduunka caalamka waxa lagu xisaabtamaa waxay tahay dhaqaalaha iyo waddan walba hantida uu haysto iyo warshadihiisa iyo wax soo saarkiisa taasoo ayadana haduu Ilaahay yiraahdo casharada dambe aan ku baran doono sida fundamental analysis marka la sameynayo la isku barbar dhigo wadamada okay Japan marka laga soo tago waddanka Mareykanka iyo China waa waddanka saddexaad ee caalamka ee ugu dhaqaalaha badan ama ugu warshadaha iyo wax soo saarka badan waa okay tani waxa ay inagu andaho tani waa in ay nagu noqonin wax la yaab leh maadaama yen ay tahay lacagta saddexaad ee ugu ganacsiga badan guud ahaan suuqa forex-ka qiyaas ahaan markii la sameeyo boqolleyda waxay noqonaysaa 16.50 boqolkiiba gaar ahaan waqtiga Tokyo session-ka marka lagu jiro waxay dhaqaaqdaa lacagta Japanka ama yenka 16.50 boqolkiiba ay samaysaa dhaqaaq okay waa waqtiga Tokyo marka guud ahaan markii suuqa dhan la isku darana waxay dhaqaaqdaa boqolkiiba 22% dhammaan dhaqaaqa ugu badan xawaaraha waxay dhacaan inta lagu jiro kalfadhigan okay hoos waxa ku yaala shax kamid ah taxanaha kalfadhiga Aasiya ee lamaanayaasha lacagta waaweyn tusaalaha labaad ee aan soo qaatayna sidoo kaleeto isna waa kana tii hore aan ka soo sheekeynayna waxay ahayd xilliyada iyo suuqyada okay marka haddana waxa uu imaanaynaa lacagaha waay tusaale ahaan halkal fadhi lacagaha suuqa yaala ee laga ganacsada ee waaweyn ee dadka intooda badan ay ka ganacsadaan dhaqaaq ilaa intee la eegay samaysaa marka si aad u ogaatid waxaan idin soo qaaday sawirkan ka muuqda gacantaada midig ee ugu horeeya tusaalaha euro iyo USD oo ah lacagta Europe laga leeyahay iyo dollarka Mareykanka labadan lacag marka waxay dhaqaaqaan ilaa 56 bib GBP iyo USD waxay dhaqaaqdaa ilaa 54 bib USD iyo JPY waxay dhaqaaqdaa 30 bib waxa imaataa AUD iyo USD ayaan sidoo kaleeto 65 bib New Zealand dollarka iyo USD waxay dhaqaaqdaa sidoo kaleeto 58 bib USD iyo CAD oo ah Canadian dollarka waxay dhaqaaqdaa 39 bib USD iyo CHF oo ah lacagta Swiss franc ama laga leeyahay Switzerland waxay dhaqaaqdaa boqolkiiba 40 okay waa isku wada mid marka muuqaalkan guud ee hortaada ka muuqda si fiican u fiirisid marka indhahaaga si fiican ugu fiirisid haddii lagu siiyo lagu dhaho lacag walba intaas soo bibay dhaqaaqdaa
qofka marka waa in uu raadsan karo lacagta ugu saameynta badan markaasi ee faa'iidada fiican uu ka samayn karo inuu ogaadaa fiican mar walba. taxanahan hoose markaan raaco marka lacagta ugu fiican ee ugu bebiska badan waxaa ii soo baxaysa inay tahay lacagta GBP iyo JPY oo ah Great Britain Pound oo laga leeyahay Ingiriiska iyo JPY oo laga leeyahay Japaanka oo ah lacagta yenka. Okay, qofka marka ka trade gareeya labadan lacagood qiyaastii celcelis ahaan marka uu furan yahay suuqa Tokyo waxay dhaqaaqdaa 72 bib. xitaa waxay ka dhaqaaq badan tahay lacagta euro iyo USD oo ah laba wadan oo waaweyn, midna midowga Yurub ah, midna Mareykanka oo ah dhaqaalihii koowaad ee caalamka. ay kasii dhaqaaq badan tahay. Okay, macnaha marka intaan u dulmarayna waxay tahay in qofka uu fahmo information ama macluumaad ku filan uu ka qaato si suuqii uu ugu trade gareeyo. hadduu ilaahay yiraahdo waxaan joognaa waxay tahay taxanaheeni hordhiciisii hore albaabkii hore laga gelayo suuqa forex-ka. marka ugu horeysana qofku wax muhiim ah inuu fahmo waxay tahay lacagaha iyo sida ay u dhaqaaqaan, maadaama intii hore aan kasoo sheekeynay aan soo baratay. haddana waxaa loo baahan yahay si suuqa aa u samaysid demo account aa ugu tababaratid waa inaa marka taqaanid lacag walbo iyo inta ay dhaqaaqdo. Okay, taas waxay ahayd marka Tokyo session. aan ka gudubna marka isla Tokyo session aan ku jirnaa iyada oo Australia iyo Japan ay si aad ah ugu tiirsan yihiin baahida Shiinaha. waxaan arki karnaa dhaqdhaqaaqa ugu weyn ee lamaanayaasha AUD oo laga soo gaabiyey Australian dollar iyo JPY oo laga soo gaabiyey lacagta Japan yenka marka macluumaad ama news ka soo baxo Shiinaha in ay aad u dhaqaaqaan. qaybta marka waxay hoostagaysaa fundamentalka qofka inuu si fiican u fahmaa fiican. waxaa lagu dhahay marka shax waxaa lagu siiyey kalfadhigan markii uu furan yahay haddii news uu ka soo baxa lagu dhahay Shiinaha waxaa badanaa isticmaali kartaa Australia iyo Japan oo ku xiran Shiinaha aadna ugu xiran dhaqaale ahaan marka la fiiriyo iyo waxyaabaha ay kasoo dhoofsadaan. qaybtaasna fundamentalkii aad muxuu ahay u anface iyo sidoo kaleeto dadka ku trade gareeya suuqan marka la joogo forex-ka newska wax loo yaqaano iyo macluumaadka marka wadamadaasi kasoo baxa dhaqaalahooda bilihii lasoo dhaafay ma kacay, kor ma u kacay, hoos ma u dhacay, wax soo saarkooda siduu ahay, wadanka shaqaalihiisa ma badnaayeen ama inta shaqa la'aanta aheedaa badneed. waxaasoo dhan marka isbarbardhigaa marka waxaa fiican qofka in haddii Shiina uu kasoo baxa news oo badanaa uu isticmaalo lacagaha Australian dollarka iyo Japan yenka oo sameynayo dhaqaaq aad u badan. Okay, waxay u badan tahay marka inaad ku aragto dhaqdhaqaaqyo xoog badan oo ka socda qaaradaha Pacifiga, Asia, lacagta AUD iyo sidoo kaleeto lacagta USD iyo NZD oo ayadana laga wado New Zealand dollarka iyo sidoo kaleeto USD oo ilaa laba isku raacayaan. labada horena way israacsan yihiin. marka AUD iyo USD na way israacayaan, New Zealand iyo USD na sidoo kale way israacayaan. sida ay uga soo horjeedaan lamaanayaasha Asia Pacifiga aan ahayn sida GBP iyo USD oo kaleeto. GBP iyo USD labadoodaba waa midna waa bariga fog ee Mareykanka, midna waa Yurub. marka inaad saas u fahansan tahayna waxay ku siinaysaa macluumaad aad u badan oo dhisi karo baleenkaaga ama qorshahaaga mustaqbalka ee suuqan forex-ka hadduu ilaahay yiraahdo. waqtigan inta badan waxaa dhacda suuq ranging ah ama isla siman. kelimadaas ranging waxaa rajeynaya inay in ka badan 3 mar ay kusoo noqoto inta hadda casharada aan bixinayno. ranging-ka waa suuq aan jihaysnayn, aan jirin kor, aan buyna ahayn, sellna ahayn oo ranging ah. marka waxaa lagu dhahay waqtigan inta badan waxaa dhacda suuqa ranging ah ama isla siman. tani waxay fursad siinaysaa xirfadaha maalmeedka sida day trader-ka oo kaleeto. qofka markuu day trader u yahay ama qof maalintii suuqaasi ka shaqeysto ama fursadaha 30 daqiiqo iyo halka saac ku shaqeysto ayay waxay u tahay fursad waqtiga gaagaaban ama xirfadaha kala goynta sida breakout wax loo yaqaano kaleeto mustaqbalka dambe. marka waa lagu sii sheegay suuqan Tokyo qaabka uu yahay, lacagaha inta ay dhaqaaqaan, fursad ahaan waxa ugu fiican ee loogu shaqeysan karo. waxaa sidoo kaleeto lagu wadaago lagu dhahay haddii uu Japan aan dhahay China uu kasoo baxo news in aad ku trade garaysid lacagaha Australian dollarka iyo lacagta yenka ee Japanka laga leeyahay.
sidoo kaleeto marka la soo dhaafo xadkan Pacifiga ee Asia laga soo tallaabana waxaa fiican GBP oo ah Great Britain pound iyo USD lacagta dollarka Mareykanka marka muxuu ku fiican yahay suuqan Tokyo waqtigan inta badan waxaa dhacda suuq ranging ah ama isla siman tani waxay fursad siinaysaa xirfadaha maalmeedka day traderka ama waqtiga gaagaaban ee xirfadleyda kala goynta oo aan hore ugu soo sheekeyno oo ah breakout oo suuqa markii uu jabsado loo yaqaano badanaa marka haddii breakout uu ku siiyo suuqaasi Tokyo fursadiisa aad ay u fiican tahay intaasna waxay ahayd macluumaadka kooban xilliga suuqa Tokyo maxaa noo xiga marka 10 daqiiqo soo qora anigoo dhammaysan barnaamijkii inoo dhiman tahay laakiin dhib ma laha oo ku soo noqonayna haddii even oo naga go'o insha Allah okay dhanka midig waxaa ku yaala marka dhaqaaqa ama pipiska mid walba fadhiyada kala fadhiga London ee labada nooc ee lacagaha ugu waaweyn tii hore waxay ahayd Tokyo oo Japaanka ah qaybtaana waa marka suuqa London waa suuqa ugu dhaqaaqa badan ee muxuu ahaa ii sheeg ugu fursadaha fiican oo reer Mareykan iyo Japaanka iyo Australiaanka xataa ay ka faa'iideystaan marka laga soo tago reer Europe iyo Afrikada fog okay marka inta imaano marka dabcan waxaa laga yaabaa inay ugu fiican tahay marka inaad la jaan qaado lacagaha euro iyo USD iyo GBP sidoo kaleeto JPY oo ah lacagta Japaanka ka soo sheekeynay iyo CHF oo ah lacagta Swiss franc ee laga leeyahay Switzerland maxaa yeelay kuwan caadiyan waxay leeyihiin fiditaanada ugu adag fiditaan macnaha waxa laga wadaa pipis waxay sameeyaan aad u fara badan waxaad sidoo kale aad isku dayi kartaa isku talaabyada yen oo ah lacagta Japaanka si gaar ah euro iyo JPY israacin kartaa waxaa israacin kartaa GBP iyo JPY israacin kartaa maadaama kuwani u muuqdaan kuwa isbedelaya hadda sababtoo ah kuwan waa laba isku geyn faafitaanku wuxuu noqon karaa wax yar oo ballaaran ama dhaqaaq faa'iido leh taasoo ah macnaha aan suuqana u joogno ee ah in aan sameyno pipis fara badan hadduu ilaahay yiraahdo okay sawirka hortiina ka muuqda marka kalfadhiga London markii uu furan yahay marka waxa inta kaaga muuqdo euro iyo USD in ay dhaqaaqdo 83 pip GBP USD ay dhaqaaqdo 82 pip waa laba lacag oo iska agdhow mid kale hadduu ilaahay yiraahdo casharadeena dambe waxaan ku baran doonaa lacaga waxaa jira isku jiha aada iyo lacaga kale jiha aada ee aan isku qaab suuqa loo gelin bilmatal marka hordhac haddaan idin siiyo labadan lacagood ee euro iyo USD iyo GBP USD waxay ka mid yihiin lacagaha isku jihada aada isku jihada badanaa u baxa haddii GBP ay tahay buy euro waxay aadaa badanaa buy aadaa dii tusaale ahaan marka cagsigeeda aan dhinac kale aan usoo qaato waxaa cagsi ku ah lacagtan loo yaqaano USD CHF iyo euro iyo USD na badanaa lacagaha kale jihada aada waaye ee aan isku jihada aadan saas marka u faahno marka totalka guud marka u nimaano marka bibiska ugu fiican suuqan hortiina ka muuqda labada beer ee ugu dhaqaaqa badan ee ugu awood badan waxa hoos kaaga muuqda in ay tahay GBP iyo JPY oo ayda laftirkeedan aan ku soo baranay kala fadhigii Tokyo in ay tahay dhaqaaqa ugu weyn ee markaasi suuqa uu dhaqaaqo bibis aan marka u xisaabinayno isla Londonna iyada ugu weyn okay good waxa u tagaynaa marka New York session-kaasna New York session-ka xuquuqda maadaama ganacsatada reer Europe ay ka soo noqonayaan marka nasashadooda qadada fadhiga Mareykanka wuxuu bilaabmayaa 8 aroornimo ee Eastern Time-ka ee xilliga Mareykanka iyadoo ganacsatada ay bilaabanayaan in ay shaqadooda dib ugu soo laabtaan ama shaqadooda aan dhahay markaas xafiisadooda iyo albaabadooda dib loo furayo oo subaxnimo u tahay oo waagi markaas u bariyay okay marka Mareykanka waaga u bariyay ee subax u tahay ee suuqa ay soo galayaan Europe-na waa mar qadadii laga soo laabtay marka waa duhuradii oo kaleeto sidii hore caadiga anaga waxaan geli jirnay intaan saacad lagu darin 8 saac furmi jiray suuqa Washington New York aan dhahay haddana macnaha markay saacada lagu daray saacad ku darso 9 saac galabnimo markay anaga noo tahay oo xilliga qadada ah Mareykanka markaas waaga u bariyay oo 8 subaxnimo ay tahay oo suuqyadoodana dib loo furaa intaas markaa faatid marka maxaa u baahan tahay oo kala macluumaad ah New York in aad ka ogaatid dhanka midig waxaa ku yaala shax ka mid ah noocyada tubooyinka kelimadan tubooyinka badanaa aad isticmaalaya hadaa fahmaysiin waxaan ka wadaa waa bibiska tubooyinka kala fadhiyada New York ee labada nooc ee lacagta waaweyn
okay inta badan warbixinada dhaqaalaha ayaa la sii daayaa bilowga kalfadhiga New York xusuusnow qiyaastii 85% dhammaan ganacsiyada waxay ku jiraan lacagta dollarka marka markasta oo xogta dhaqaale ee Mareykanka la soo daayo waxay leedahay awood ay ku wareejiso suuqa ama ay ku dhaqaajiso taasna waxaa loo baahan yahay qof walba inuu fiiro u yeesho sababtoo ah qof walba ama meel walba qofa kaabaladarka ah lacagta dollarkana waa lacagta suuqan ugu awoodda iyo ugu dhaqdhaqaaqa badan wax badanna la rabo in aad ka ogaatid lacag walba oo kale aad trade gareynaysa ama dhaqaale walba oo kale aad ku xiran tahay in aad dollarka xaaladiisa ka warqabtidna aaday u fiican tahay tani waxay kuu ogolaanaysaa marka inaad ku ganacsato ku dhowaad 2 nooc oo lacag kasta ah xilliga marka uu furan yahay New York Sessionka waxaa ku ganacsan kartaa lacag walba oo 2 nooc lacag kasta ah inkasta oo ay fiicnaan lahayd marka lacagaha dollarka ka baxsan lamaanaha waaweyn iyo kuwa yaryar tusaale marka lacagaha dollarka ka baxsan oo kale waxaan ka wadaa euro JPY sidoo kaleeto euro GBP AUD JPY lacag aan dollarka raacsiisanayn oo ku trade gareyn kartaa okay marka qaybta marka u nimaadna marka isla shaxdii oo kaleeto xilliga suuqa New York uu furan yahay euro USD waxay dhaqaaqdaa 77 bib GBP USD sidoo kaleeto 68 bib dhaqaaqdaa average daily markii loo xisaabinayo isla markii hoos u soo socono lacagta ugu saameynta badan ee ugu bibiska badan waa GBP iyo JPY kelmadan in badan aan ku soo celiyay laakiin waxaan rajayn doonaa in ay la fahmi doonto insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo okay waqtiyada ugu fiican marka ee suuqan laga shaqeysto Japanka iyo suuqa UK-ga labadan suuq marka waxaa jiro xilliyo la rabo qofka forex ama ganacsadaha suuqan sarifka lacagaha qalaad in uu fahmo xilliyada ugu fiican ee suuqan laga shaqeysan karo waa goorma xilliyada ugu fiican ee suuqan laga shaqeysto waa marka ay isku soo gaaraan laba suuq hal sida suuq sii xirmi raba iyo mid markaas furmay oo loo yaqaano overlap Tokyo iyo London overlap oo macnaheedu ay tahay subaxii hore marka anaga waaga noo sii bariyaayo waxaa sii furan suuqa Tokyo ilaa laga soo gaaro 4 saac subaxii 4 saac markay tahay waxaa furmaya suuqa London Tokyo sii furan marka Tokyo markuu London furmo ayay gabal dhace u sii tahay oo galabtooda u sii dhamaanayso anagana markaas waaga noo bariyo oo subax ay noo tahay waxaa laga yaabaa marka Tokyo inay nala sii joogto marka saacad inay sii furnaato kadibna ay suuqii ka baxdo overlapka marka xilliyadaasi ay Tokyo iyo London kulmaan oo ay macnaha ka dhiman tahay saacada waa xilliyada ugu badan ee lacagta ugu badan laga sameeyo suuqan ee la rabo qof walba malay dabata ah in uu badda soo galo maqaalintiisana uu hore u soo qaato taasoo macnaheedu ay tahay in analyze kaaga samaysatid in lacagii aqrintooda iyo hawshooda aad gashid lacagaha ugu dhaqaaqa badan ee bibiska fiican samayn karana in aad qayb fiican ka qaadatid okay tan waxaa ogaanay markaa in waqtiyada ugu fiican ee suuqan laga shaqeysto ay tahay xilliyada ay iskulmayaan laba suuq oo midna markaasi uu furmay iyo midna uu markaasi gabagabo uu sii maraayo ama wax saacad ama ka badan ka yar aan dhahay ay ka dhiman tahay good forecast marka la joogana waxaa loo yaqaanaa overlap haddii kelmadan overlap ama qashid waa kala bedelka ama kala guddoonka laba xilli ama laba magaalo ama laba suuq oo isdhaafaya ama markaas ku kulmay meel kadibna wax yar kadib uu suuq ku hari rabo suuqa kan midka kalena uu ka bixi rabo suuqa inaad fahanteen rajayna insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo sidoo kale marka maadaama soo ogaanay suuqa Tokyo iyo suuqa London waxaa sidoo kale ayadana kamid ah waqtiyada ugu fiican ee laga shaqeysto suuqan xilliyada London iyo New York overlap loo yaqaano tani waa waqtiga ugu mashquulka badan maalintii iyadoo ganacsatada labada xarumood ee ugu waaweyn London iyo New York ay bilaabayaan inay soo bandhigaan awoodooda ama enerjigooda ama wax walba markaas suuqaasi dhaqaajin karo waa inta lagu guda jiray kalfadhiyadan dhaqdhaqaaqyo aad u waaweyn gaar ahaan marka warbixin ama newska Mareykanka iyo Canada la sii daayo xilliyada marka labada suuq ay kulmaan ama ay furan yihiin London iyo New York waxaa badanaa diiradda inaa saarto loo baahan yahay aadna uga warhaysid fundamentalka ama newsada markaas soo bixi karo haddii even isla waqtigaasi marka uu soo baxo news Mareykanka ama Canada ah
xilliyada xilli ka mid ah ay tahay weliba ay ku aadan tahay xilliyada overlaps loo yaqaano ee suuqyada kala sii tagayaan oo suuqa London uu xirmi rabo New Yorkna uu markaasi 10 saac ama 9 saac galabtii soo furmay oo waqtiyada ugu fiican ee bibiska aadka u badan laga sameeyo taasna in aad qayb fiican ku qoratid si aad suuqaani uga shaqaysatid aad u noqotid min xirfad leh yaqaan shaqadiisa waqtiyada ugu fiican ee la shaqaysto iyo waqtiyada suuqaani in aad ka fadhiisatid loo baahan yahay good okay marka maalmaha ugu wanaagsan marka intaas waxay ahayd marka waqtiyada maalmaha jira marka maalmaha u baahannahay in aan ogaano ee suuqaani ee laga shaqaysan karo